هلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي يوتيوب وأنا السلام برنامج كمان تنقاد لأنه وحلا يرادا I need a love وحنا بهانا يتشعيل وحنا بهانا يتشعيل وحنا بهانا يوم ولا إن لا يتشعلاد وحنا بهانا يدتكو إنه يتشعلاد وحنا بهانا إنكيجو إنه يتشعلاد وحنا بهانا المايجو إنه يتشعلادان وحنا بهانا waalidkay inuu jeclaado waxaan u baahanahay walaalahay inay jeclaadaan waxaan u baahanahay adduunku inuu jeclaado waxaa la yiraahdaa I need a love jacayl baan u baahanahay also waxaan u baahanahay happy inaan noqdo waxaan u baahanahay ilmahaygu inay farxad geliyaan oo happy iga dhigaan waxaan jeclahay ninkaygu inuu iga farxad geliyo oo iga dhigo happy farxad geliyo happy iga dhigo waxaan u baahanahay walaalahay iyo familygaygu inay happy iga dhigaan waay dadku adduunyadu inay iga farxiso waana adduunyadu iga farxineen waana familygaygu iga farxineen waay also waxaan u baahanahay peace nabadgeliyo nabad inaan helo oo aan nabadgeliyo wanaagsan aan helo oo aan layga dhib iyo buuq iyo problem iyo imtixaan iyo wax dhibaya aan laygu samaynin ayaan u baahanahay I need a peace I need a love and I need a happiness I need waxaan u baahanahay jacayl inuu iga yimaado bannaanka oo aniga qof kale jacayl siiyo ama ilmahaygu jacayl siiyaan oo ninkaygu jacayl siiyo oo waalidkay jacayl siiyo oo walaalahay jacayl siiyaan waxaan u baahanahay dadka bannaanka farxad inay iga timaado ama happiness oo aniga adduunku happy iga dhigo oo familygii dhalay happy iga dhigo oo caruurtaydu happy iga dhigaan oo ninkaygu happy iga dhigo waxaan u baahanahay peace iyo nabadgeliyo aniga ay caruurtaydu adduunku inuu peace isiiyo ninkaygu isiiyo caruurtaydu isiiso walba isiiyo bannaanka inay kaaga timaado intaasoo dhan jacayl iyo farxad iyo nabadgelyo inay bannaanka kaaga timaado ayaad raadinaysaa dad badan oo adduunyada dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ku nool oo qurbaha dadka jooga ugu badan yihiin ayaa dhibaatadaasi arrintaasi dhib ku haysa oo sugaya oo raadinaya oo u xanaaqsan oo istarays ugu dhacay oon anigu ka mid ahaan jiray waay aan la ii jeclaanaynin waay aan la ii jeclaanaynin waay taankiyo aan la ii dhahaynin waay waa mahadsantahay aan la ii dhahaynin waay wax layga xanaajinaya la iigu samaynayaa waay oo waxaan sugi jiray dadku waxaan ka rabaa inay dhahaan ama ijeclaadaan oo wax wanaagsan i dhahaan oo wax farxad geliya i dhahaan oo iga maxaa laygu sameyn waay waqti badan baan ooyontaa raadinay especially waxaan isku dayi jiray inaan gato jacayl in lay jeclaado especially xiriirka aniga iyo hooyaday noo dhexeeyey waxaan aad iyo aad lacag badan ugu bixiyey familygayga iyo hooyaday aan aad ilmahayga intaan u dayacay uga dhaqaaqay aan u shaqayn jiray intaasoo saacadood inaan ku gato jacayl lacag inaan jacayl lacag ku gato maalin youtube-ka waan soo galay baan u malaynayaa anoo ka oynaya waxaan mar walba dhihi jiray enaf maadan samaynin in lagu jeclaado ama hooyaday ha noqoto ama bini aadmi kale o dhan ha noqoto waxaan jacayl ka raadin jiray naftayda meel ka baxsan waxaan ka sugi jiray dadku inay jeclaadaan oo jacayl siiyaan si aan naftayda u jeclaado waxaan jeclaan jiray dadku inay wacyi farxad geliya ay ii sameeyaan oo ay wacyi hadal farxad geliya ay dhahaan in si aan u faraxsanaadoon habi u noqdo waxaan mar walba raadin jiray inaan dadku ay ammaan siiyaan iyo biis oo nabadgelyo siiyaan oo aanay waxa maskaxdayda waalayo iqasayo tashuushka igu furayo iga xanaajinaya aanay igu samaynin
oo ay biis isiiyaan si aan anigu biis u helo. dadku inay wax iga farxiya i dhahaan si aan anigu farxad u helo. dadku inay tusaan oo ii sheegaan inay jecel yihiin si aan anigu jacayl u helo. 20 sano waqti ka badan baan arrinka awooday. xaqiiqadii baan soo taabto. maalin maalmaha ka mid ah anigoo fiirsanaya oday hindiya oo la yidhaahdo Sadhguru oo maxay ahaytay aan muslin ahayn laakiin life coach aada cajiib u ah ayaan dhegeysta. sometimes waxaa jira kelmad aada maqasho oo forever maskaxdaada bedesho, noloshaada forever bedesho. hal kelmad, hal eray ood u baahnayd oo sida kiniiniga naftaada u daweeyaa jira. maalin baan dhegeysta anoo youtube-ka fiirfiirinaya, wuxuu yiri complete bata, waa dhammaystiranta farxadaada. in laga qofna inuu adiga kaa farxiyo mas-uulka ma ahan, mas-uulka ma ahan. qof mas-uuliyad ka saaran tahay ma jirto inuu adiga waa kuu soo diray lacagta inuu kaa farxiyo. also qof mas-uuliyad ka saaran tahay ma jirto in uu adiga biis kaa dhigo, qof ama uu nabadgelyo kaa dhigo. qof ay mas-uuliyad ka saaran tahay ma jirto in adiguna mas-uul kama tihid dadka inaad jacayl aad u tusto inaad jeceshahay, ood maanta o dhan in la jecel yahay aad tusiso. mas-uul kama tihid, mas-uul kama tihid. ninkaagu farxaddiisa isagaa mas-uulka ah. adiguna naaga dumar haddaa tahay, farxadaada ninkaaga mas-uuliyad kama saarna inuu kaa farxiyo. mar kasta ood faraxsanaato adigay mas-uul kaa saaranta. dadku inay ku jeclaadaan, calaykum assalaam hooyo, mas-uuliyad ku saaran maahan. inaad adigu naftaada jeclaato adigay mas-uuliyad kaa saaranta. biis inaad biis noqoto adigu naftaada inaad iskaantaroosho ood qalbigaaga kaantaroosho oo wixii ku dhibaya aad ka joojiso adigay mas-uuliyadu kaa saaran tahay. qof mas-uulkaahu ma jirto, walaa caruurtaada, walaa ninkaaga, walaa naagtaada. qof mas-uulkaahi ma jirto. it is your responsibility to love yourself, not someone else's responsibility. it is your responsibility to make happy yourself and to be happy with your own skin and your own life and your own self. that is your responsibility. you're complete. ilaahay baa ku dhammaystiray. aslongi aada og tahay inaad dhammaystiran tahay, baahi bini aadmi kale uma qabtid. maalintii aan dhegaystay Sadhguru, it was eye opening. indhaha iyo furtay arrintaas maskaxdayda. that was my aha moment. Oprah markay fikrad hesho waxay tiraahdaa that is my aha moment. aha ilaan weligay waxaan raadinayay iyo waxaan u xanaaqsanaa iyo waxaan u caraysnaa meeshaan ka raadinayaba ma jirin, aniga ayay iga jirta. maalintaas intii ka bilaabato hadalkaa aan ka maqlay Sadhguru, that video changed my life. you are responsible yourself. complete bata. your creator completed you. adoo completeaad dhalatay, adoo completeaad adduunka ku noosha, adaa mas-uulka. emotional waxay aad u baahan tahay emotional ama dareenkaaga iyo qalbigaaga wuxuu u baahan yahay oo farxad iyo happiness adigaa mas-uulka ah. naftaada ammaankeeda inaad ammaan iyo biis maskaxdaada iyo jirkaaguba hesho adigaa mas-uulka ah. naftaada inaad isjeclaato adigaa mas-uul iska ah.
I wish intaas waqti hore inaan maqli lahaa. marka aad barato luqadaha kala duwan ee adduunka, especially luqadda ingiliishka, waxaa kuu furmaya adduunkao dhan iyo qof kastoo aqli ka hadlaya ayaad u tahay, ayaad fahmi kartaa. haddaanan iskuul intaan aado luqadda ingiliishka baran lahayn, Sadhguru iyo wuxuu ka hadlayo midna ma fahmin. Sadhguru waanu qoray common baan ugu qoray thank you very much. a year after 1 year, hal sano kadib, you changed my life forever. maalintaas ayaan meel fariisto, waxaan bilaabay inner peace, inaan anigu isla hadlo, inaan anigu peace naftayda u raadiyo, inaan anigu mas-uul ka ahay farxadayda, inaan hooyaday mas-uul ka ahayn, caruurtayda mas-uul ka ahayn, nin qaba mas-uul ahayn, qof kaloo ka mas-uulu inuusa jir. maalintaasaan isla hadlay, ilaan waxaan banaanka iyo dadka kale ka raadinayay, ilaan anaa qaladka iskale, ilaan bilaash baanu xanaaqsana. maalintaasaan bilaabay inaan anigu naftayda hoos u fiiriyo, waxaan fahmay inaan qaldanaa. maalintaasaan bilaabay inaan naftayda ilaahay uga mahad celiyo sida quruxda badan uu ii abuuray, sida dhammaystiran uu ii abuuray. adduunyada waxaa jiro gabar baan waqti yar ka hor sheekaysanayn, labadeeda indhood midna inta waa la qalay, oon iyadoo ilmo yara waqti qof yar dhalinyaro iyadooba labada indhood laga gala oy xanuunka qabto. waa asxaabteena YouTube, ilaahay labadaba faataxada u mara inuu indhaha u caafiyo. mid baa loo qalay, midi kalena waa loo qalay doonaa, faataxada u mara. waxaa jira gabdhaha saaxiibada asxaabteyda YouTube oo laba indhoola oon indhaha wax ka arkin. waxaa jira gabdho dhagoola ah, waxaa jiro gabdho curyaana ah oon laxaadkoodu dhammaystirnay, waxaa jira gabdhahan caafimaad qabin oo kaliyo fariista. waxaa jira gabdho anunbaa hoos isku fiiriyey, caruurtu maanta ka xanuunsan tahay oo iyagoo 20 jiroo ka xanuunsan maanta dhaybarka ka bedelaya. ilaahay waxaan ka baryay ilaahay inuu caafiyo qof kasta oo xanuunsan, inuu caafiyo saqiir iyo kabiirba. waxaan aada u fiiriyey nimcooyinka farada badan ee ilaahay isii, iyo sidii qof wax ka maqan yihiin indhaha cirka ugu taagay. waxaan maskaxdayda ka fakeray oon la fariisto inaan anigu faraxsanaado, inaan anigu waxaan bilaabay anigu inaan naftayda isjeclaado, oo aan naftayda qiimeeyo, oo aan anigu isla hadlo, oon anigu qiimahayga iyo nafsadayda aan isjeclaado. maalintaan bilaabay naftayda anigu inaan isjeclaado, oon anigu isla sheekaysto, oon anigu isku qanacsanaado, oon anigu nimcooyinka millions of nimcooyinka ilaahay isiiyey iyo nafsadayda aan ku faraxsanaado. forever maalintaasay noloshaydu isbedesha, farxad maalintaasay ii bilaabato. maalintaan joojiyey farxad inaan ka raadiyo dadka kale, oo aan dadka kale jeclaada kula dagaalamiyo hadal wanaagsan ii dhaha iyo wax wanaagsan ii dhaha. maalintaas iyada ah ayay farxad ii bilaabato. maalintaa iyada aan waxaan bartay inaan waxa iga xanaajinaya ama niyadda iga dilaya aan iska fogaado, oon iska xiro. sometimes anaa taleefonka 24/7 raadsan jiray dhibka iyo problemka, iyo in waxaan dhibsado igu dhacaan anaa taleefon wixii jiroo raadsan jiray oona salafkaan taroo lahayn. maalintaan bilaabay naftayda inaan anigu qiimeeyo, forever noloshaydii baa isbedeshay. anigibaa waxaa noqday qof aada cajiib u ah, oo qof kasta oo
asagii waqti aanu haynin. waqtiga waxaa meesha ka baxay markaan bilaabay anigu waqtigayga iyo naftayda iyo timekayga iyo hadalkayga inaan iskantaroolo oon isqiimeeyo oon anigu biisi isku noqdo oon dantayda biisi ku noqdo oo aan qof kasta oon muran iyo dhib iga imanaya wax kasta aan ka istartiib anoon murmin oon booqin aan iska damiyo amaba aan ka fogaado. waxaan ogaaday I have a control myself inaan anigu naftayda control ilaahay uu isiiya awooddaa naftayda inaan anigu control anigu sidaan dareenkayga waxaan farxadayda inaan mas-uul ka ahay. waxaan also kale ogaaday ilaahay subxaana wa tacaala inuu i abuurtay adduunkana inuu keenay waqti time kooban uu asagu ogyahayna inuu siiyey. maalin kasta mar kasta waxaan ka fekeraa oon wax maskaxdayda wax yara dareemo caawa ma haddii lai sheego caawa waa habeenkii adduunyada kugu dambeeyey maxaa importanti ku ah, maxaad ka fekeraysaa, maxaad markaa lagu yidhahda maanta adduunka kugu dambaysa dhib kuma hayso. taasaan ka fekeraa. aqaro ilaahay muxuu ku oran hooyaday oo waa yeela maxay ahaytoy maxay ahaytoy iyo caruurtayda inta yaryaraan qaan gaarin. intaasaa maskaxdayda bes intaas baa maskaxdayda kusoo dhacda. adduunka waxa kaloo dhani dasan maare wax macno weyna ma samaynayso. ilaahay agtiisa maxaa ku yaalo, ilaahay maxaad ula tegaysaa qabriga markii lagaa soo kala dareero. hooyaday waa waayeel waxayna ku nooshahay dhaqaalaha annagoo dhan aan u dirno. haddaan caawa dhinto dhaqaalaha waa badannahay laakiin qaybta waxaan anigu u dirayay way ka go-ayaan inkastoo caruuriyi joogtay u dirayso. laakiin maxay ahaytoy arrin siday maaragtaa noqonaysa dee allahu yaclam. iyo ilmahayga inta yaryare rajada noqonaya daadsid de waxaan kaloon isku mashquulinayo, waxaan kaloon ka fekerayo, adduunkan kale inta shushka isku furayo ma yaallo meesha. riisan aan uga fekerana meesha ma taalo. adduunkan ilaahay baa iskaleh asagaana maamulanayo sida ugu talayo ayuuna noqonaya. marka gabdhaha Soomaaliyeed gabdhaadu fara badan ayaa soo wacay YouTube-ka oon asxaabtayda YouTube-ka intaan ka hadlayo waxaan tala bixin iyo life coach inaan gabdhaha la taliyo ayaan in badan ay gabdhuhu i socdaan iyo nolosha. waxaan fahmay shidada iyo problemka dumarka gabdhaha Soomaaliyeed inagu inaan wadano. waxaynu rabnaa ninkana qabo annagu sidaan rabna inuu noqdo, annagu waxaan rabna inuu sameeyo, inagu inuuna fahmo annagiion hadlin wax qalbigayaga aan ka rabno. waxaad maqlaysaa gabdhiyo kale ninku ima jecla. adigu naftaada ninku ha ku jeclaada jacaylka ninku isagaa imanaye adigu naftaada ma jecesha, adigu naftaada ma jecesha. markaan ilmo dhalo oo 2 cunug iyo 3 cunug dhalo waynu isku dhex yaacnaa. waxay nagu noqotaa shock because ilmaha wax inooga sheekeeyey ma jirto. wax inagu yiri ilmana waad dhali kartaa noloshaadana waad wadan kartaa way adag tahay ma jirto. ilmuhu inta ood gacanta haysaa waa 5 sano. 5 sano wixii ka dambeeya asaa ku dhinac ordaya iskuulku ka aadaya. 5 sano ayaa waxay nolosha iyadoo dhan ka dhigtaa. waxaan u aragnaa wax cirkii dhulka isku soo dumay iyo sanadkan urka ku soo 6 sano. gabdhahan cadaanka waa dhalaan ilmaha waa umulaan 12 bilood bay nuujiyaan surwaal shaatigooda inta xirtaan oo hilibka iska ridaan bay shaqadooda hore uga noqdaan. ilmahoodana daycare bay geystaan. culayskan iyo shidadan iyo waxaan inagu haystaana ma haysta. waxa weeyaan ilmuhu waa ku fududaanaysaa
ilmuhu koriskooda wuxuu kuu fududaanayaa marka aad adigu istakeer garayso. waxaynu leenahay waa buuqaynaa, innagii baa buuqayna qaylinayna because waxaan isnahay insecure dumarkii, innagii baan isku kalsoonayn. markana umulno oo caloosha yara fido oo jirka yara balbalqo ma garanayna markaan waad umushay ee dib isku soo celi. bas ninku hadduu baxbo waxaan leenahay ninkii naaga kale raadsaday waa inacay waa yeelay. xataa hadduu damco inuu ku toosiyo ku yiraahdo hilibka iska yaree, naawaad salmaanta ahay salmaame eegaan igu dhalayo ninka xunka laba cunug markuu iga dhaloysada cuqdadu nafsi aan guryaha iyagii kala nimid. ilaan markaan yaryarayn baan nalalahaa gabar baa tahay qiimo malihid kanaa tahay kaasaa tahay babababa jikada gal balaayayal kan yaal bayna haysta. inagoon cuqdadu nafsigii jirka iyaga guryaha iyagii nalagu soo koriyay aan ka dawoobin ayaanu gursan. ilmo dhalisi hawsha baa noogu darsoomaysa. bas qiimihii nafteenaba waan ilmaamaynaa. gabadha dhalinyarada ah ama oo ilmaha dhasho ama ilmayay dhali maxaa kuu soo haray? inagu nafsadeeni baa meesha ka baxno. waxaa laynagu soo koriyey ninkaagu wuxuu ku yiraahdo dhegayso wax walba yes mom yes man yes man noqo, oo wax alla wuxuu ninkaagu ku dhaha hayadhe, waxay hooyadaa ku dhahdana hayadhe, wuxuu aabbahaa ku dhahana hayadhe, waxay sododaa iyo sodogaa ku dha qof walba hayadhe. qof walba raalli geli. qof walba markaad raalli geliso adiga yaa ku raalli gelinaya, adiga naftaadii ayaa meesha ka baxaysa. intaadan intaasoo dadoo dhan raalli gelin muhiim number 1 waxaa ka camacal ilmahaaga inaad adigu horta naftaada aad raalli geliso, inaad naftaada takeer garayso, inaad naftaada xanaanayso before intaadan wax kalaba qabanin. inaad adigu intaad soo toosto number 1 cadaysato, waji dhaqato, weysaysato, salaada ilaahay ku faray, waxaad adduunka dadku lagu faray, shaqada adduunka waxaa ka miimatu alla ku faray inaad salaad subax aad tukato. markaad tukata kadib dharkaad ku seexatay wuxuu dhan intaad iska bedasho shay nadiif xiratood wejigaaga nadiifsato, wejigaaga wax marsato, inaad tartiib si yaroo fudud, quraac yaroo fudud, jiko yaroo fudud adu waxaaga. baankeeg baan hadda sameeyey iyo maxay ay tooy baankeeg baan saaka markaan soo toosay baankeeg baan ciyaalka u dumay wakaasa ma garad may bal sharoob baa ku jirta jikadii oo dhan kor iyo hoos baan ka nadiifiyey. qof soo toosay ma jiro anaa ugu soo horreeyey ma garad. dad badan baa guriga joogo waxaasoo dhan qaban kara, qofna inaan sugo ma baahan. waa exercise. anaaba exerciseka u baahan inaan socdoon wax qabsadoon musqusha iyo jikada iyo intaanan samaynayo ana ii tahay exercise. waxaaga dhag markaad samaysatid haddaad qabays u baahan tahayna dhag isku sii. haddaan isku u baahnayna shaqadaada gurigaaga o dhan israacso, ilmahaaga waxooda dhag u kale fiiri isfiiri. markaad adiga dhaqankaa waxa aad u yaqaanaa hablaha reer waqooyiga. anugu burcaan deganaan jiray. gabdhaha reer waqooyiga aad baan u jeclaa. gabdhaha reer waqooyiga waa lagu dacaydeeya, waxaa lagu yirahdaa dumarka reer waqooyigu maxay ay tooy naftooday jecel yihiino, nafteeday jecel yihiino, maxay ay tooy naftooday jecel yihiino. nin iyo caruur iyo wax kasta kaligooda wax samaysta, kaligooda wax karsada, they deserve. waa gabdho aqli leh oo aada u aqli badan. aada baan gabdhaha u jeclaa. waxa weeyaan haddaanan naftaada adigu jeclaan yaa jeclaanaya. gabdhahaasi subaxii markay soo toosaanay salaadooda tukadaan canjeeradii waxooda samaystaan. suuqa intay ku kalahaanay adeega kasoo qabsadaan ayay huruudooda dhag isku siiyaan, ay diracooda jabdhankaa gashtaan, bay reerka jikada intay ugalaan bay quraacda sameeyaan, bay qadada sameeyaan. qadada intay samaynayaan iyagoo maasha allah tabaaraka maxay ay toy suuqa burcaberiga adhono haddaynu ku yaalo waxaa ku yaalay adeega markaad aado meel yaroo beer yar, dumarku beer yar iyo canjeero yar ay ka cunaan. markaad adeegayso suuqa laga adeeganaya ku dhex taala waxaa la yidhahdaa jubajangal. maxay ahayd haddii aad gaajaysan tahay beer yaroo ku jira seesarkan koobabka beer yaroo ku jira
oo saa loo dubay hortaada lagu dubayo iyo waxaad ka cabaysaa iyo 2 xabo laxoo waxaad ka cunaysaa lacag aad u yar baad ku gadanaysaa adigoo tamar iyo energy beer markaad cunto beerku dhiigaagaaba kordhinaya adigoo maxay ahaytoy dharagsan ayaad maxay ahaytoy aad imanaysaa midda kale hablahaasi suuqa markay imanayaan midaba labiskii ugu soo dambeeyay kusoo labisataa iyadoo diracay jikada ku jirta qabta jikada ma yimaada aad baanu jecla dad badani way ku dacayadeen waxay yiraahdaan hablaha reer waqooyigu naftoodun bay dan ka leeyihiin naftoodun bay dumarka reer waqooyigu naftoodun bay ka naxan dadka waa qarash miiran waa qarash shidi sarf ilaahay baan kuugu dhaartay gurigooda nadaafada iyo caruurtooda nadaafada iyo dharka waayo iyadii baa nadiifa iyadii baa jirkeeda iyo nafteeda dhisan iyagii baa istakar garaynay aad baan hablaha reer waqooyiga eedada waay aad baan taa ugu ammaanaya hana lagaga barto waa lagaga daysado waxa weeyaan marka maxaa kuu soo haray waxa layna baray dadka kale raaligeli ninkaaga waa inaad raaligeliso maanta oo dhan ninka dharkiisa bay feeraynayna ninka dharkiisa bay dhaqaynaa ninka dharkiisa baynu hagaajinaynaa sariirta baynu hagaajinaynaa inagu duruucdeeni waxaa laga yaabaa inaynaan meel kaga warramin iyo dharkaynu xuranayn waxaa laga yaabaa jirkeennii inaynaan meel uga warramin waxaa laga yaabaa nafteennii dhaqaalo waxaan haysano dhaqaalahana soo gala dadkaan u qaybinaa inagu laakiin naftaada qof bini aadmiyaatay wax meel u dhigo oo wax meel ku arurso waad aragto markay meel waxaad ku ogtahay qalbigaa kuu degan ma garat markaad meel wax kuu yaalaanaad wax meel dhigato qalbigaa kuu degan laakiin markaanaad wax meel ku ogeyn gaaji guri og iyo gardarro guri og midna looma adkaysto waad warwaraysaa oo waad walbahaaraysaa markaanad meelaad gadaal ugu noqoto aanad lahayn ee wax dhigta wanagii waxay naga maqan hablaha Soomaaliyeed intay aruurino ayaynu ninka u dhiibnaa anaa idin kamid ah ma garat markaas ha dhowto markaad dhiibayso way fududahay laakiin markaad adigu u baahato inaad ku danaysato kama soo saaraysid ninku sidoo asagu rabo ku sameynaya xitaa haddaanu naaga kaliya wax ku guursan oo siinin isagu gacantiisa xoolaha maalintay galaan siduu asagu ku taliyo ayuu ku sameynaya kaama talagelinaya adiga maxay kaama adigana sidaad adigu taladaada kuma shaqaynaya xoolaagu markay gacantaada ka baxaan it's very important dumarka Soomaaliyeed inay iyagu xoolahooda aynu gacanteena aynu barano inaynu gacanteena wax ku reebano oo aynu wax ku haysano intaynu inagu waxaanoo dhan bixino oo ninka ku rarno walaalaha ku rarno waalidka ku rarno qof walba ku bixino iska can marino ayaanu hadhowna habaar iyo xanaaq la fariisana oo aanu niraana maxay aytoy way dhibeen reerkan ninkani waxay oo dhan iga qaatay waxani kan buu yaal wiilkaaga dhashay wuxuu rabaa inuu xukumo ku taliyo oo ku maamulo adiga gabadhaadu waxay rabtaa inay ku taliso ku maamusho reerka ku dhalay waalidka adigoo ayeeyo adigu ah reerka ku dhalay waxay rabaan inay ku taliyaan ay ku maamulo ma maqlaysaa ninkuna wuxuu rabaa inuu ku taliyo ku maamulo adigoo islaam weyn oo ayeeya adiga laga rabaa inaad adigu ismaamusho oo adigu naftaada maamusho oo dhaqaalahaaga maamusho oo waqtigaaga maamusho oo hadalkaaga maamusho naftaada adigu Ilaahay ku sii qof kale oo kula sii ma jirto naftaada adigu Ilaahay kugu deeqay markaad dhimatidna wixii ku dambiyood samayso naftani adigu kala xisaabtamaya markaa baro farxadaada inay adiga kugu xiran tahay isku tasho naftaadana runta u sheeg intaynu anagu iskala daadino oo hawo beena istusno oo qof walba waxaynu ka dhignaa qofkan hadaad wanaajiso wuu ku wanaajinaya qofkan hadaad siiso wuu ku siinaya qofkan hadaad u naxariisato thank you baad ka helaysaa qofkani hadaad maanta asagu wax tarto bari markaad u baahato wax ku taraya xaqiiqaduna qofku waxaad adigu xaqiiqaduna waxay tahay qof hadaad wax tarto Ilaahay wajigiisa u tar haddii adiga wax lagu tarana qofkaasi Ilaahay wajigiisa ku tar dumarka Soomaaliyeed waxay intaad ummadda oo dhan lagu amaano iyo lagu faariyo ummadda oo dhan intaad u raali gelin lahayd Ilaahay ku abuurtay raali gali oo cibaadayso
naftaadana raalli geli oo naftaada dhaqaale la-aanta uga tur, dhibka uga tur, meesha lagu dhibayo ee lagu dhibaataynayo ee lagu wareerinayo uga tur. naftaada isjeclo. waxaan fiidiyowgan idinkugu soo koobayaa intaad aamustaan ood meel fiiritaan, muraayadda hor istaagtaan, isfiiriy naftan, qofkan ilaahay naftan ilaahay ku siiyey jeclo. qiimaha aada haysato isfiiri. billions of dollars naftan kuma helaysid, caafimaadkanna kuma helaysid, indhahana kuma helaysid, afkan hadlayana kuma helaysid, sankanaad ku neebsanaysana millions and billions of dollars kuma helaysid. mashiinkan kugu rakiban ee labadaada lugood iyo labadaada gacmood dhexdooda ku yaala ee warshada ah, in yare hadday kaa xumaato ilaahay unbaa ku hagaajin kara. maskaxdan kuu shaqaynaysa kombyuutarkan allah kugu rakibay ku faa'iidayso. waxa ugu badanee qofka bini aadmiga ah baabi'iyo noloshiisa aqarana naarta geeya waa maskaxdiisa iyo waa maskaxdiisa oo meel xun u jahaysa oo dad daba orda. qofka dadka ugu ayaanka daran waa qofka caawiya bari dadka daba orda ee bini aadmi kale ugu xanaaqa. maxaad wax ii siin weyde, maxaad ii raalli gelin weyde, maxaad iiga farxin weyde. dumarka soomaaliyeed gafuurkun baynu sidaa u taagnaa. xitaa karti waxaan dhibsanayna aan ku sheegano malihin. gafuurkun baynu sidaa u taagnaa. you don't need gafuur markaad taagto adiga istarays isku furaysid. you don't need gafuur inaad taagtid. haddaad isku tashatid ood ilaahay ku tashatid oo aad shaqaysatid intaad shaqaysan karto ood wax soo saaratid sidii Khadiija binti Quwayda, ood adigu isjeclaato, ood naftaada qiimayso, ood si wanaagsan ood cibaadaysato, ood labisato, ood waxaad laba shay haddaad haysatid iyagoo nadiif u xirato, markaas ayaad ood afkaaga iyo adinkaaga ka adkaato, ood waqtigaaga iyo dantaada ku qabsato. qofkaad caawin karto oodan qofna isku halayn, oodan qofna taankiyu ka sugin, oon qofna inuu ku xasuustiyo inuu ku jeclaado aadan ka sugin, eed qof walba dadka aad u caawisa ilaahay dartiis. adiguna aad ilaahay halkaa u aado ood yaa rasaqyaad fatax tiraado ilaahay baa kugu fila. nin baa ku qaba, hadduu ilaahay wax kaa siiyo ka qaado, hadduuna ilaahay wax kaa siin isku tasho, ilaahay kaagama qorin. Khadiija binti Quwayda waa exampleka haweenka muslimka. iyadaa taajirad ahayd oo xoolo haysatay. nabi maxamed oo wiil yaroo dhalinyaro u shaqaynaya iyaday guursatay calayhi salaatu wasalaam. dhaqaalana kama sugayn, dhaqaalana ma weydiinin, hantideeday ku guursatay. ilaahayna awlaad qurux badan iyo jannaba waa ka sii. Khadiija nabigeena calayhi salaatu wasalaam, Khadiija binti Quwayda is ummatul mu'miniin, gabar kasta oo muslimada Soomaaliya Khadiija example ugu furan. iyadaa taageeraysa. gabdhaha Soomaaliyeed, ragga Soomaaliyeed way ka aqli badan yihiin, way ka dhaqaale badan yihiin, way ka karti badan yihiin, way ka degan yihiin, way ka multitaska. gabadhu 4-5 shaqay hal mar isla qaban kartaa. raggu ma samayn kara. maalin baa waxaan fiirsanayay hooyo gabar dhalinyaro caddaana intay cunugeedii xabadka ku xiratay oo bahalkii garbaha gashatay oo halkan loo xiranayay ayay waxay dhagaha gashatay earphone ood company ay ka shaqaynaysaa, alaab waxay siinaysaa, ka hadlaysaa, waxayna dubaysaa ilmaheeda ayay bahal waxay ugu samaynaysaa, quraac ugu samaynaysaa hilib iyo baanke. meeqa shaqay haysaa? untay karinaysaa, taleefonkaa dhagta ugu jiro shaqay ku jirtaa, waa shaqaynaysaa, waa berigii karoona gurigay ka shaqaynaysaa. baybigii yaraana xabadka ugu xiran yahay oo inuu ka ooyo ayay diidaysaa oo halkeedaasoo ku hodurta. aad iyo aad 3 shaqay hal mar isku haysaa. ma samayn karaan raggu. farxad meel kale ma jirto. adigaa mas-uul iska ah iyo qalbigaaga inaad takeergarayso, iyo how you feel feelinkaaga inaad naftaada raalli geliso. adigaa mas-uul iska ah. ninkaaga haddaad farxad ka sugayso,
farxad kaama mas-uul kaama ahan haddaad reerka ku dhalay farxad ka sugayso kama ahan adiguba markaad yarayd waa layna dhalay qofna taankiyu iyo waa mahadsantahay maynaan dhihi jirin inaguna dadka ina dhalay waxaan tarno they don't have to thank you iyo midna inaad ka sugno ma ahan waalidkaa waxaad tali kartidna tar hana la buuqin hana la murmin ma alsalaam haddaad aragta inaadaan isfahmayno buuqu badan yahay bishii dhowr jeer salaamu calaykum ma fiicantahay wa fiicana macal salaama hooyo macal salaama aabo awoodaasaad leedahay waxale waxaad u awoodana sii hadalkana ha ku badin haddaydan hadalka isfahmayn ha ku badin bishii ama 2 ama 3 jeer salaamu calaykum u fiicantiin ilaahay nimcadiisa that's it weligaa ha isku dayin waalidkaa inaad qasabtid oo noloshaad adigu rabta ay ku noolaadaan ama sidaad adigu la jeceshahay ay ku noolaadaan no waqti badan baan taa waqti isaga dhumi oon ku kufiyus gareey oon ilmahayga iyo naftaydiba ku gabay inay waalidkay sidaa rabaa ay u noolaadaan no waalidkaa sidaa iyagu rabaan bay u noolaanayaan not sidaad adigu rabtid waalidkaana ma xukumi kartid saa iyagaaba ku dhalay horta adduunka taagnaaya sidaydii oo kale haddaa taa u xanaaqsantahay ha u xanaaqin ninku muxuu siduu rabaad u noqon weyda ma noqonayo ma garat inaad u xanaaqdana mid umalihid ninkaan ilaahay baa abuuray dabeecad gooniya iyo guri gooniya u wataa siduu asagu rabo u noolaanaya aan mana aan qofna dumarka qaar baa nin qamre cabayo jaad cunayo sigaar cabayo intay guursadaan bay waxay dhahaan oo inaan bedelaan rabaa anaa bedelayo you cannot change it no one qofna ma bedeli kartid dadka ilaahay baa abuurtay hanuunkana asagaa bixiya all you can do adoon inaad u ducayso qof is okay ninkaagu hadduu kaa dabeecad duwan yahay is okay sidiisaas ku accepti gare adiga ma ahan mana ahan adiguna warshada intaad geliso sidaad rabta kama dhigi kartid maxaad marka stress iyo xanaaq isugu dili no siduu yahay is okay lifekiisa isagaa iskale waxaa jiro caruurtu guidance ayay kaaga baahan yihiin caruurta mar walba naftaha ku dhibin ha kaantaroolin maanta oo dhan ha kor taagnaan maanta oo dhan ha ku qaylin special ilmuhu markay yaryar yihiin oo iskuul iyo qur-aan baranayaan maskaxdoodii baa biisiya dhibtaasaa ugu filan maskaxdaha ka waali hooyo u noqo ilmaha dabada ha ku dhegin markaad aragto bar naftaan ayagaa iskale ilmuhu 18 hadduu gaaro diinta islaamku 15 bayba tiri 15 ilmaha muslimkaa hadduu gaaro dambigiisa asagaa loo qoraya adigu shaqadaadi waad dhamaysatay ilmahan adigu inaad koriso oo jidka markuu xoogaa yar aad sii dayso si uu u barto inuu isugu tashto wax yar jidka hadduu markaad aragto inuu ka yaro leexanayo inaad inta u yarto tiraado taas mustaqbalkaaga kuma roona kumana wanaagsan ka joog gurigan anaa mas-uulka ah intadana anaa miiska saara ruufkana kirada anaa bixiya morgageka warabar midkay tahay gurigan ruul buu leeyahay hooyo guriga ruul ka raac markaad weynaato waxaad rabtaa waad samayn kartaa laakiin gurigan ruul baa u degan hooyo ruulkaas waqtigaad rabta iskama imaan kartid waayo adigu ma shaqaysid biilashana ma bixisid gurigan inaad ku noolaataa lagugu kureeyay waqti wanaagsanimow ruulka u yaala raac gurigan intaad ku nooshahayna ilmaata markaad ilmanimada ka baxdo yaad xor u tahay waxaad rabta inaad samayso intaad gurigan ku nooshahay ilmaa tahay waxbarashadaada dhammayso si sidaad rabto aad u samayso sidaad rabta aad u gaarto soo ima maqlaysa marka waani arrinta u dambaysa fiidiyowgan kusoo koobay inagu intaynu wax walba halayno ayaynu caruurta eedaynaa oo dadka eedaynaa caruurta ha dilina caruurtiina ha dilina caruurta ha caynina caruurta ha habaarinina caruurta habaarka way ku gadaadaan dilkana way ku gidaadaan caydana way ku gadaadaan ilmuhu haddaad habaarto inuu ku habaaray u dhowdahay haddaad caydana inuu ku caayay u dhowdahay haddaad dishidna waxa weeyaan wuxuu ku arkayaa cadowgiisa mana ku aaminayo waxaa ka dhumayo tarastiga uu ku qabo waayo ilmahaaga qofkii xanuunjin lahaa
oo dili lahaa matid dil waa dhaqanka qofka cadowgayo qofka uu dilay uu ku sameeyo cadowgiisa ku sameeyo uu qofka ku sameeyo hooyada iyo aabihii ku dhalo adduunka kuu jecel inay ku dila maaha waa dhaqan qaldan oo dhaqanka soomaalida ka yimid ilmaha dilka la dilaa ama cayda la caayaa qalbigiisa waxay gaarsiisaa damage forever qalbiga ka soo gaaro oo 60 sano 50 sano ilaa hadda maskaxda bini'aadmiga ka guura waxayna wax u dhintaa waxayna ka qaadaa ilmuhu kalsoonida waalidka ka qabo iyo inuu waalidka aamino ilmahaagu hadduuna ku aaminsanayna wax kastood u sheegto kuma dhegaysanaya hadduu aaminku ka dhinto caruurta hadilina caruurta cayda la caayaa ilmuhu markuu yaryahay qalbigay kaga dhigtaa ilmihiina ha caynina waxaad u horseedaysaa hadhowta in la caayo oo cayda raalli ku noqdaan ilmihiina ha habaarinina samadu marbay furantoo laga aqbalaya ilmahaagu hadduu intaad habaarta uu habaarku ku dhacana adigu hadduu uryaan iyo indhool noqdo aduu kuusoo fariisanaya hadduu dhaawacmo lugaha ka jajabiyo balaayo qubsata aduu kuusoo seexanaya adaa dhalay meel kale ma aadayo markuu xumaado marka u ducee si uu markuu weynaado wax kuu taro take care yourself and love yourself aan nafteena jeclaada jacayl banaanka ha ka raadinina farxad banaanka ha ka raadinina adiga isku hayside iska jooji inaad dadka kale indhaha u taagtid adigu isjeclow oo adigu isqiime waqti yar gudihiis ayay ummadoo dhano lagu qiimeynaya oo qofku markuu naftiisa isqiimeeyo isjeclaado oo isku kalsoonyo confident haysto ayuu qofka ummadda uu soo jiidan karaayo ummaddu jeclaan kartaa laakiin qof daciifa oon isagu isjeclayn oon isagu naftiisa qiimaheeda fahamsanayn oon isagu isku kalsoonayn ciduna ma jeclaanayso ciduna kuma kalsoonayso haddaadan adigu isjeclayna dadku kuma eedaysna inayna ku jeclaan inay kaa cararaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu